الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta annaga oo ku hadlayna magaca ururka samafalka ee tawfiiq waxaan joognaa jagadii allaale oo uu noogu waqfi noo siiyay walaalkaya xasan oo markii horena jagada 15 ee dhan ee agoonta loo dhisay waqfi noo siiyay imikana 15kii kale ee ka dambeeyay 15ka hore waqfi noo siiyay deetanaano jagadii 15 ahayd annaguna aanu laba qaybood ka dhignay qayb aan u dhisi doona allaale oo hore shaashada dhowr goor idin ka tusnay qaybta labaadna cidii ilaahay u qadaro ee kolba aan u garanaa aan u dhisi doona hadii ilaahay yiraahdo allaale qaybtiisi way socotaa sidaad shaashada ka arki doontaan biidnillaahi rahmaan mar hore ayaan shaashada ka soo deynay waxa wali ayaa allaale cid u soo jawaabtay ma jirto ilaa gabadh diiday wadanka ay joogtay inay sheegto deetana tiri aniga ayaa wax soo ururinaya lacagta wax loogu dhisayna ogeyd amar nagu siisay hadii cid laga sii qaadaa ay jirto alaabta lagu dhisayo guriga allaale ama shaqaalaha lacagta la siinayo meel laga sii qaadaa haday jirto inaanu sii bilowno deetana iyadu ilaahay dartii wixii ay awoodo u soo diri doonto insha Allah rahmaan waa loo wada allaale shaashada la idin ka tusi doona waxaan si naxariis la idin ka codsanaynaa ummadda muslimiinta ee Soomaaliga taqaan meel walba ku nool dunida dacaladeeda inay allaale waanu ku soo celi doonaa isagana shaashada iyo dhismihiisii oo socda kulay dhismuhu iska hawl badan yahay lacagtii lagu qiimeeyay horaan idin ku soo sheegnay marka waxaan leenahay ilaahay dartii inaan ka yar loogu soo jawaabo loogu soo dhameeyo guriga markay allaala u dhamaato hadii ilaahay yiraahdo bardo anagu haddana takalum baan bilaabi doona layno intaan u taaganahay baaba intaas dadka masaakiinta aad u dhibaataysan ama agoonta ama dhuriyaanka ama dhimirka inaanu wixii aanu u tari karno aanu u tarno qof walba bila aadamiga waqtigan imikaan joogno wuxuu ku hamiyayaa inuu dhaxanta meel ka galo iyo roobka iyo dabaylaha marka allaale ilaahiisa u roon waxa weeyaan wax yar baa u hadhay waxa u hadhay iyo wax ma taqaana hadhow gurigiisa loogu hagaajiyaba idinkaan idinka fadhina Bismillahir Rahmanir Rahiim anigoo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka ee tawfiiq siday hooyo bas laga soo sheegtay waxa la wadaa gurigii allaale Axmed Khaliif gurigaas oo siday hore uga soo dhawaashay lacagta lagu dhisay hadda ay deyn tahay waxaanu si naxariis loogu codsanaa ummadda muslimiinta ee af Soomaaliya garanaysa meel kasta ay joogto inay allaale soo caawiyaan si gurigaas loogu dhameystiro oo dhaxamaha uga galo waxaan leeyahay intii hore uga soo qayb qaadatay jazaakumullahu khayran jazaa inta dambana waxaan leeyahay wada sugaynaa insha Allah ta'ala.